dhahay ninka walaalkeena waana la aragteen haddana waxaa waaye fanaanad yar oo soo xirtay oo dhaxan camal ah garay miya cadaan miya ma ogi madaxo isoo dabooshay horta aniga mikrofon le arkooyaa ninka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا وضع السلامة دمانتينا انت جنالكي كتحن تيم أرواح شريف مركا سلام كدب مانتا يا انت كفلقين دونا مانتا انت وحن كفلقيننا ننكلا دهاي دالمرياري إلهي وكالكعية سيدا أوجيدا كينيا أيو حفلت كدكتي وكالكعضي حتى دانتو ديلي wuu baashaalay dadka way jeceliin waa nin legend ah ma garatay maantana waxaan rabnaa heesihiisa inaan wax yar anaga reaction aan ka dhiibano wixii anaga in nagula muuqato wixii anaga nagula muuqato marka waxaan ka hadlaynaa ninka la dhahayay walaalkeena dalmaryare qalad oo horta sameeyay ninka Mareykanka ee iskala imaadeen ama USA ninka iskala imaadeen Jarmalna waxay dhahaan USA dadka iskala imaadeen waa Jarmal USA Soomaaliya waa USA okay ninkaasiti oo hadda ka hor imaanay showgiisa wuu fashilmay la dhahayay haddii oo soo wadan lahaay isku daba gamban lahaayeen waxay noqon lahayd dalmar iyo ninkaasiti inay lacagta macaashka meesha ka soo galo inay ku wada baashaalaan ee waxaaba ku irtaaxaan ma aysan sameynin horiya waxaa loo dhahay hungurweynin malaya saab ugu dhacay hungurweynin malaya saab ugu dhacay marka waxaa ninkan la dhahay yarka Mareykanka ka imaanay iyo dalmaryare haddii isoo raaci lahaayeen ee wax isla wada falaqeen lahaayeen ee heesaa wada qaadi lahaayeen ee dadka ee ka wada tumi lahaayeen yarkaana way u dhacan lahayd asagana ma fashilmi lahayn asaga ma uusan fashilmi lahayn laakiin waxay rabeen inay waxaa waaye ninkan noqodiis inuu ka darsado ninkan kale noqodiis inuu ka darsado way suurtagali waas ninkaas wuu fashilmay laakiin dalmara magac leh labadooda maadaama dalmar oo magac leeyahay in dalmar lagu daba gambado adiga waxyaalo badan oo suurtagal lahay mugta laakiin se ninkaas wuu soo degdegay wuu soo baxay oo wuu fashilmay walaalkeena waa ka xunnaa horta aniga waxaa waaye inta kuma dacaaydeynay waxaa waaye nin uu hunguri raadinayo ahay asagana way u suurtagali waysay laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa walaalkeena dalmar yare xataa sida uu u dheelaayo dhaantada in aan ka hadalna rabnaa hadduu eebe nagu saamaxo oo waqtina aan u helno marka walaalkeena dalmaryare wuxuu imaaday Nairobi waa la soo dhaweeyey rog casaana loo fidiyey waxaa ii sheegtaa ciidla yara soo dhaweeyey haddana waxaa kaloo soo dhaweeyey magaciisa ii sheega ninka la dhahayay heer isma dhaanta dhan aa soo dhaweeyeen maadaama heeris ma dhaantay ay soo dhaweyn ciidla yare aniga meesha waan ku arkay asoo wax duubaayo laakiin fiidiyoyaasha kale inaan daawan laga yaabo inuu hees qaado laga yaabo laakiin labada kale isma dhaanta la jilaayeen big bro iyo waxaa ii sheegtaa nin kale magaciisa muxuu ahaay kafi labadoodaba ma aan arag laakiin qofka bin aadanka meesha qofkan dana qabsan karto qurbaa lagu nool yahay nin walba waa shaqaystaa maadaama nin walba oo shaqaysto labada meesha wax loogu waayay ninkan big bro lahayna meesha wuxuu oo tagsiila waay asaga tagsiila waay marka habeenkaasiti inuu antoobya iska qaato raba antoobya ma aragtay inuu iska qaato raba laakiin balan ay noo qaadeen inay ka dhex muuqanayaan meesha iyo showga laakiin haddana waxaan sugaynaa rubaayado kale oo dalmar oo kula jiro ee noo balan qaadeen ayna dhaheen dalmar ayaa nagula jiro marka walaalkeena dalmar waxyar maanta waxaan jeclahay in oo waxyar ay igala qayb qaadatiin horta heestii way u kala kacday showgiisa show fiican oo dhigtay oo beelle laga daba dhacay ma garatay intaasoo qalqiyaan iskugu imaaday marka inaa ila daawatiinaan rabaa ninka dalmar la dhahay walaalkeena dalmar Yeah.
waa ila aragteen horta tan ma ahan tii oo dhaantada iyo wax la dheelayay, laakiin koofiyada la wataa. horta dad badanna way ii sheegeen koofiyadda way siibeen oo dhahay. hadda ka horna habeenkii markii asaga oo imaanayo oo lasoo dhaweeyey wuxuu dhahay aniga koofiyadda waan dhigaa, bidaarteedana waa arki doontiin. ma garata aday bidaartana waxaa waaye hadda ka horna asaga wuxuu dhahay bidaarta aniga bidaarta ma beeranayay, laakiin haddii aniga aan beerto kaniisaan ku noqonaa. wax saas miya ma ogi. horta dad baa sheegaya soomaalidana way iska warbadan yihiin oo inay been noqotana taas laga yaabo, laakiin aniga hadda waa kana way ugu socotaa. maalinta igasha waan beeranaa. dad badan oo beertaan arka oo xaasas leh caruur dhalay, ma garatay, laakiin inay baqiilnimana ka tahay laga yaabo. ma garateen ninkan walaalkeena dalmaryare waxaa waaye showgiisa wuu u kala kacay. ma garateen waxaa waaye nin legend ah, nin afgaaban, maraykanka uu ka imaaday, roog casaan iyo adduun iyo waxyaale ayaa loo fidiyey. markaasayte nin lasoo dhaweeyey oo kala kacsan ayuu ahay. marka waxaa maantana haddana waxaan jeclahay tii dhaantada oo qaaday asaga. horta aniga marka hore waxaan u malayn jiray inuu kasoo jeedo meeshaan ii sheega magaceeda muqdisho ama koonfur, laakiin wuxuu kasoo jeedaya u maraynaa dhinacan adiga geligshanad miya oo kasoo baxaan filaa. maxaa yeele sidoo dhaantada uu u jibinayo oo u qaadayo ayaan la yaabay. ma garateen marka haddana waxaan rabaa wax yar in aa ila daawatiin oo aydin soo deeyo oo waxaa waaye dhaantada sidoo u qaaday ninka. waxaa waaye waa nin kala kacsan. ma garateen maadaama nin kala kacsan oo yahay anagana showgiisa waa ku faraxsannahay, laakiin saaxiibkiis kasoo horeeyey oo maraykanka oo ka imaaday ayaa showgiisa fashilmay. saaxiibkiisa ayaa showgiisa fashilmay, marka asagana showgiisa u kala kacay. waana ku faraxsannahay, laakiin rubaayadana wuu soo jilaal lahay. rubaayadahana aniga waan ka warsugaynaa hadduu ilaahay hadduu raali ka noqdo insha allah. markana hadda dhaantada sidoo u qaaday iyo sidoo u jibinayo inaa ila qaybsatiin ayaan jeclahay, iyo inaan idinku soo dhaweeyo idinkane aniga wax walba a idinkaga farxiyo oo waxaa waaye madadaalo yar aan sameyno. waa kaa marka ninka walaalkeena waana la aragteen. haddana waxaa waaye fanaanad yaroo oo soo xirtay oo dhaxan dhaxan camal ah, garey miya cadaan miya ma ogi, madaxoo iisoo dabooshay. horta aniga makarafoon le arkooyaa ninka haysta uma jeedi, iyadoo la heesayaan arkay. anigu waan garan waaye, laakiin dhalinyaro saaxiibadeeda ee ila wada daawanayeen ayaa ii sheegeen, waxay dhaheen ninkaasiti madaxa u dadan waayo. marka dalmaryare sidoo dhaantada u qaadayo anigaaba jalboodaybo, waan jalbooday ya waan jalbooday, waan jirircooday. marka walaalkeena dalmaryare waana ku faraxsannahay. waxaan naga ballan qaada anaga inaa adiga noo soo qaadaysid, inaa adigan rubaayada ah isla dhaanta aa la keenaysid iyo waxyaala saas, iyo adi waa kaa warsugaynaa. bal inaa naga faraxsidna waa rabnaa. showgaaga oo kuu kala kacayne anagana waa ku faraxsannahay. nin legend ayaa tahay, nin ee soomaalida dhan ay jecel yihiin, afgaaban, ma garata adi, oo xataa dad ayna isku dhegdhegnayn. laakiin aniga hal rubaayadaan kaa jeclaaday. rubaayadda markii aad jilaysay oo gabar miya kula jilaysay, gabadhaas maraykanka kula nooshaa, hadda rubaayada soo jirtaa, nimco hebelaa la dhahaa aan u malaynaa. markii ee ku dhahday aniga
adiga jannada miya waxaa isku soo qaadeen xurul cayn iyo waxyaala saas iyo adigana markaas waxay dhahday haddii adiga aad dhimanayso xurul cayn aa helaysid waxaa waay anigana waa kula dhimanaya wax saas camal. horta waa naga farxisay maasha allah. marka dalmaryare walaalkeena waan kugu faraxsannahay, anigana reactionaan kaa soo dhiibnay. marka waxaa waay saa u jalaboonaysaa aan la yaabo, waa la yaab saa u jalaboonaysa aan dhaanta ma kasaay, laakiin waa isku dayi karaa wax walba. sheekul kulli aa laydhaha magacayga aniga, ma garateen. marka waa kaay walaalkeenna waa nala daawateen. waxaana idin leeyahay please channelkayga arwaax shariif subscribe, like, share, comedy. markane waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.